maanta oo isniina 26 August 2019 madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani ayaa u anbaxay dalka dibadiisa. madaxweyne Dani waxaa sii sagootiyay madaxweyne ku-xigeenka dawladda Puntland mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash. waxaa sidoo kale sii sagootiyay xubno ka tirsan golaha wasiirada, xubno ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka dawladda Puntland, saraakiil ciidan, saraakiil ka tirsan hooyada, mas'uuliyiin kale iyo dadweyne. halkaasi oo dadka sii sagootiyay madaxweynuhu mid u gacan qaaday safarka madaxweynaha ee dawladda. waxa uu ka bilowmayaa marka hore oo uu booqanayaa dalka Itoobiya. aad iyo aad buu mahadsantahay.